nabadii warsa saaxiibayaal waa biskiintii Kawsar ahayd oo magaaladeeda idin soo dhaxsalaameysa idinka dartiina halkan soo istaagtay oo furin idin soo gudbinaysa waxa uu taaganahay maanta in dhamaanteenaba aan u wada duceeyno walaasheena Foos Jalsi sidaan ognahay maalmihii ugu dambeeyay saaxiibadeena baraha bulshada waxay soo bandhigayeen xaalad aad iyo aad u liidata inay ku sugan tahay oo warbixin iyada ay soo qortay qabri cidla ah waa la wada aadaya cid kasta oo aniga iyo adiga waa tagi doona laakiin waa la kala qareeyaa haddaba walaasheena Foos Jalsi maanta duca ayay nooga baahantahay warbixinada qaldan ee diilada ah ee dadka qaar aan san xaaladeeda rasmiga ah ay soo gudbiyeen bulshadeena aan ka tirtoonaano warbixinada qaldan hala soo wadaagina saaxiibada daafaca caalamka ku nool aniga kamid ah aan maanta ogaan karin xaaladda ay ku sugan tahay walaasheena deeq qaasim oo ganacsatada isla markaana awriyo ku sugan Soomaaliya oo aan la xiriiray isla markaana barkeeda ku soo daabacday ayaa sheegtay in xalay ay booqatay walaasheeda Foos Jalsi sidoo kalena ay xaaladeeda caafimaad ay aad u soo fiicnaanayso hadda waxay tahay soo arag dadka laga wareegayo baraha bulshada alla uga baryayay in caafimaadkeeda lagu kasro oo iyada dhashay Foos Jalsi waxay sidoo kale u soo dhigtay deeqa fariin ku aadanayd gabadheeda waxayna dadka baraha bulshada isticmaala ka codsatay in gabadheeda ay ka daayaan wararka been abuurka ah ay ku soo gudbinayaan bulshada waxay kaloo sheegtay maamada in gabadheeda ay soo martay marxalado aad u adag balse maanta ay ka duwan tahay sidii hore adeega gurigeeda ayay wax ka qabataa ayay tiri maamada maanta xaaladeeda way fiican tahay marka loo eego waqtigii la soo dhaafay sida ay ahayd nolosheeda waxaa kaloo ay Foos ay aad ugu sheekaysay deeq waxaa taa laga dheehan karaa in sida hore ay ka duwan tahay gabadha warbixinta la faafinayana ay tahay warbixin farqi weyn u dhaxeeya nolosha ay ku sugan tahay walaasheena wararka xaqiiqda ah faafi inta aad soo daabicin soo hubso wararka saxda ah maadaama aad ku sugan tahay wadankii wararka been abuurka walaalka dheeraaw walaasheena Foos Jalsi allaha caafiya maanta waxaan u awoodnaa waa bil Ramadaan inaan alla u tuubo si uu Ilaahay u caafiyo alla u bari wax kale oo maanta u qaban karto adiga iyo aniga ma jirto laakiin wararka beenta ah inaan dhaafno aan bulshada la sii wadaagin ayaan awoodnaa hadda maanta bilaaw adiga walaasheena ka daa wararkaas saxsaneen waa saaxiibadeeda la wadaagayso xanuunka Allah ka dulqaaday xanuunsan oo dhan caafimaadku waa muhiim waxaad ogaan kartaa markaad xanuunsato